بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن إن شاء الله تعالى بلا بدونا درس كصابسا تفسيرك جزء عما sababtuna waxay tahay dad badan ayaa iga soo codsaday maadaama juzcan uu yahay inta aasaaskee dadku badankoogu yaqaanaan salaadahana ku tukadaan. waxaa jeclaadeen dad badan oo kamid a asxaabteyda inay macnihiisa bartaan qur-aanka kariimka in macnihiisa la bartaana waa muhiim jiddan, aada bay muhiim u tahay, waana ujeedada ugu weyn dee ilaahay u soo dejiyay qur-aanka kariimka subxaana wa tacaala in macnihiisa la barto oo lagu camal falo si maxaanaha aada u ogaato wuxuu ilaahay kugula hadlayo subxaana wa tacaala, uu ku amrayo wuxuu ku diiday. markaa 5 daqiiqo ayaynu qaadan doonaa insha allahu tacaala, inagoo caawa ka bilaabi doonaa suuratu alfaatixa, suuradda faatixada. faatixadu waa suuradda ugu horeysa, laakiin waynu ku furfuranaynaa, waana suuradda salaada lagu furfurto, waana sababta loogu bixiya alfaatixa ama asabca almathani. waxaa la yidhaha asabca almathani magacyadeeda ka mid tahay, macnaha way soo laalaabataa, haddii ragcad kasta waa la akhriyaa. marka waa 7 aayadood ay soo noqnoqdo weeye. marka bisinka lagu daro waa 7 aayadood, sida saxdaana bisinku waa ka mid, marka waa 7 aayadood weeye. asabca almathani walqur'aan alcadiim walaqad aataynaaka 7 min almathani walqur'aan alcadiim ayuu ilahay yihi subxaana wa tacaala. waxaanu ku siinay 7 aayadood oo cajiib badan oo soo laalaabanaya iyo qur-aanka weyn inta kale suuradaha. markaa qur-aankuna waa 114 suuradood oy faatixadu ku jirto. markaa suuratu lfaatixa waa suuradda salaada lagu furfurto walaalayaal. qof muslima oo maalin kasta salaad tukanaya, maalin kastana faatixada akhrinaya, haddana aan macnaheedii garanayn, waa dhibaato, waa nasiib daro. marka fiidooga yara gaabane 5 daqiiqo waxaan ugu talagalay bal inaan macnaha faatixada oo aynu si degdega u marinayno, maaha sharax kama bixinayno dheer, waynu macnaynaynaa af soomaali ahaan si ay walaalahaasi u ogaadaan faatixada macnaheeda. gaar ahaan walaalaha 5,000 oo qof ku dhawaad oo wax yar ka dhimayin ayaa facebooka saaxiib ku naha, oo badankoogu yihiin dad positive oo xagga fiican wax ka eega, in yaroo waxay jirta negative. intaana ilaahay subxaana wa tacaala ha garasiiyo dhinaca fiican inay wax ka eegaan. bismi illaahi araxmaani araxiim. ilahay wuxuu yihi waxaan ku bilaabaya abda-u bismi illah, magaca ilaahay. marka magac kastoo ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ayaa soo hoosgelaya. arraxmaani allaha naxariista badan, arraxiim sida gaarka ugu naxariista awliyadiisa, dadkiisa mutaqiinta saalixiinta si gaara ugu nimceeya naxariistiisa. marka ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisu waa mid ballaaran. waraxmatii wasicat kulla shay, naxariista ilahay wax walba way ka ballaaranta. markaa gaalku xitaa wuxuu ku hoos nooliyay naxariista ilaahay subxaana wa tacaala. alxamdu lilaahi, mahadoo dhan ilaahay baa iskale. rabbi alcaalamiin, allaha caalamkao dhan u rabbiga ah ee koriya ee arsaaqa. markaa arab way ka ballaaran tahay, magacaasuu ka ballaarhaya magaca kale alkhaaliq. rabbi alcaalamiin, allaha caalamkao dhan u rabbiga ah ee koriya ee arrimahooga dabera ee arsaaqa ee biyaha iyo roobka usoo dejiya, nabaadkee dhirta dhulka uga soo saara. ilaahaasaa mahadle. arraxmaani, allaha raxmaanka, arraxiim ee naxariista badan. waa 2 magacoo ka mid a magacyada ilaahay. maliki yowmiddiin, maaliki yowmiddiin, allaha maamula maalinta yowm alqiyaama. yowmiddiin waa yowm alqiyaama, waa maalinta yowm alqiyaama. ilaaha maamula. kii diidanaa xitaa adduunka wuu garan doonaa maalinta yowm alqiyaamaha inuu ilaahay maamulo, indhihiisu wax ku arki doono. iyaaka ilaahu adaanu nacbudu ku caabudaynaa, wa iyaaka allahayow adigun baan nastaciinu ku kaalmaysanaynaa, kaalmo ku weydiisana. dhibaatada adigun baa naga difaaci kara, wanaagana adigun baa na siin kara. ihdinaa, nagu hanuuni asiraada jidka almustaqiim toosan, waa diinta xaqa ah, ilaahu nagu sug. wanaagga ilaahu na tus, shaydaanka ilaahu nooga gargaar. siraada aladiina, waxaad nagu hanuunisaa jidkii ay mareen kuwii
ancamta calayhim aada ugu nimcaysay islaamnimada dadka wanwanaagsanaa shuhadadii iyo saalixiintii gayri lmaqduubi naga badbaadi kuwii aada u cadhootay jidkooga calayhim aada iyaga u cadhootay ee cadhadaadu ku dhacday oo ah kuwa xaqii gartay laakiin xaqii ku camal fali waayey xaqii bay garteen islaamku inuu diin xaqa yahay bay garteen laakiin lam yacmaluu bihi kumay camal falin waladaalliin ilaahu sidoo kale waxaad naga badbaadisaa kuwa lunsan waa kuwa jahliga iyo maangaabnimada ilaahay ku caabudaya een aqoon lahayn aqoon ma laha markaasi haddana ilaahay ku caabudayaan aqoon darri markaa waa dee tusaale culummada mufasiriintu badanka waxay usoo qaataan kuwan ilaahay u cadhooday ee intay xaqi garteen laakiin xaqi aan raacin yahuudda kuwan cilmi la-aanta ilaahay ku caabudana nasaarada ama kristanka laakiin labadaa lagu koobo waa khalad waa tafsiir kooban oo aan fiicneen waa in la ballaadhiyo la yidhaahdo waxaa soo hosgelaya cid kastoo xaqa garatay ama ha noqdo yahuudi ama majuusi ha noqdo ama ilaahdiid ha noqdo wuxuu doonaya ha noqdo laakiin xaqi garta oon islaamnimadii raacin iyo mid muslim sheeganaya laakiin jaahila labaduba way soo hosgelayaan ama aan muslimba ahaynoo laakiin jahli ilaahay rabo subxaana wa tacaala inuu ku garto